الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا. ربي أوسعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين. هذا من فضل ربي ليبلوني أشكر أم أكفر. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق الناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. آديات باد أمهات سنتهين قابلات دوين إيدي قابشين يسلق النبي قد قابشين إلهي ميزان كعسرات كايدي صاروا. وسيركي هوري وزارة ورفافين تدقن كي وعي قلنتا مضاني علي محمد حسن. وزيرك وزارة الديجان كي يسبدل كعمل الله عبد الله يجيل شره. وسيرك عجين كي هوري وزارة ورفافين تا. وسيرك عجين كعصب وزارة ورفافين تا. الله يسك شكرا لك. قدومي وكعجين كحسب الحاكم كودني والله يسنا. صاحبك شكرا نبيل ما شاء الله. الله يعزك ما شاء الله. وزير كحجينك ورا وزارة وحبرشة صاحبك عبد الحكيم بستاله أقاسمي جود وزارة تعليم تسره عبد الله حاج عمر صحفي قوين حسين علي النور سلطان محمد سلطان كي جود حلبان كي جور تدا يقوم مثلا حلبان قاسم صالح مدر وزير دمانتين السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. هذه أدبان ديكم هاد علينا إياه. waxaan si gaar ah ugu mahadcelinayaa marti sharaftiya iyo shaqaalaha taagan saacadii aan soo galay ilaa saacadaan joogno ee aan marna fadhiisanay baan ugu mahadcelinayaa. walaalayaal maanta xil baan nafuulay ilaahay ha nagu asturo. ilaahay waxaan ka baryaynaa wasaaraddan loo dhiibay ee qaranka qiimaha weyn u leh in uu aniga iyo tiimkaygaba nagu asturo. wasiirka walaalkay ee aan xilka kala wareegay Cali Mareexaan oo runtii u hanaynayo wax qabadkiisii halka ku soo bandhigayna waan ugu mahadnaqayaa haniyan laka saaxiib Cabdi Mareexaan wasiir good luck waan leenahay nasiib wanaagsan Allah sii. walaalayaal wasaaradda cusub ee la soo magacaabay madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland wadana Dr. Cabdiraxmaan Maxamed Cabdullaahi soo magacaabay waa wasaaradda laga warramay qaranka kaalinta ay ugu jirtay iyo hawsha taalla. adna ilaahay waxaan ka rajaynayaa qalbiga furan ee la igu qaabilay qalbi furan oo la mid ah inaan ku qaabilo shaqaalahayga iyo waxyaha shaqayn doono. wasaaraddu walaalayaal sida magaceeda ka muuqata waa wasaaradda warfaafinta dhaqanka iyo wacyigelinta. waxaan walaalayaal doonayaa inaan exactly intii karaankayga ah oo daacadnimo ku jirto aan magaceeda ka turjuno wasaaradda haddii la yiraahdo warfaafintii qaranka ay noqoto meel baahisa war lagu kalsoon yahay la daawan karo la dhageysan karo la aamini karo la xiisayn karo inay faafiso inay noqoto wasaaradda qaranka jihaynaysa haddii lagu soo duulo difaacaysa hadduu horumar u dhaqaaqo faafinaysa hadduu cadow kale ka hortagaysa kaalintay warfaafintu lahayd mid qaadata iyaan ilaahay ka rajaynaya. waxaana ay qorshaysan maanka ku haya number 1 strategic policy wasaaradda inaan dejiyo. qodobka labaad wasaaradda laba ilood bay ka soo burqanayaan waxa ay horumar sameynaysaa. mid waa materialkii haddeerta laga warramayay kamaradaha inaga duubaya transmitterada warka laalinaya qalabka warbaahineed ee ay ku shaqeynaysaa waa il ay ka soo baxayso marka materialka awooddan saarayna. isha labaad ay warbixin wax soo saar ku sameynaysaana waa dadka iga soo horjeeda waa human resource. waxaan awoodda saari doonaa intii karaankayga ah inaanan waxba kala hakran inaan dhiso shaqaalaha human capitalka wasaaraddu leedahay inaan dhiso inay noqdaan dad professionalist really professionalist farsamo yaqaano xirfadlayaal saxaafadeed ummad wax u gudbin kara not only level of Somaliland level ka la gaarsiiyo aqoon warbaahinta waa communicationka waxa weeyaan warfaafintii weey war lagu kalsoon yahay muuqaal qurux badan oo la daawan karo dad professional waxa soo saaraya. qaybta labaad waa wasaaradda dhaqanka waax baan nagala joogta waan u ducaynayaa inta ka jiifta waan soo dhaweynayaa inta diyaarka inta da'da ku jirta waan xanaanayn doonaa
وقيب بان نقل جوجتا أو فانكي بان نقل جوجتا سوغانتي كلي أدرك نقل جوجتا دقن كنو كبل لارين هاي سوغانتا وقيب كمدون دقن كحيل بوليه هاي تاريخ بوليه عادوين بوليه دقن بوليه قضب بوليه تاريخ بوليه دقن كوا وح بالله ووحي سكين هاي حبكتي سكين هاي سوا دقن سومالنا هو كلتشر وي دقن كو مررك قاركود وحلا حتى ديمه كاود بطا سدو أمضى هاي سكوا هاي قيب تار دقن كانوا ولا ليال دقن كني ما تدولان حوق لا لغو هاي مر وقت بقى الله دقالمية السوشيال ميديا الله دقالمية ودو حينان شقة كلها هاي وعيب النجوها وأفكارقاتها هي عادي النقضي قفكو هدو ضدك عايو ده إنه ماموس بالشدة كل حياة شما سيدي الله صور دويني سيدو هيرو نقولي سيدي الله وصل برنامج قفك ضدك عايو وإنه ليتا وإنه تكبر عض نقطة ودقن كال ويرر لويه هاي لذا عصر جا ويرر كوها المك الدنيا دي أن إن لبد دين تهين كوي أن مسلم كباهين كوي أن قاركود دين بس أستراليا شرع كسو صارت السوشيال ميديا إن لحديده تتكيرير أكسس كأوية لنا China كفرديو دكتيه إنك أنا دقن كيني هالكو مرينا يو صدوه هالكو مرينا يو قبليه هالكو مرينا يو دليل هالكو مرينا تمرك واحد نوبانا إلى الأمة بين النهاي capacity هاي سيء إنه حرر كي وحاكو حكمين إني السوشيال ميديا ولبا إنه وسائل الدنيا سو دقن كي بلاريسو شروينا دقن كو باغدو ضدك دقنك مدحدا دقنك سلاطين تعقاش واي أرق وحقرتك فنانين تهل أبورك أبواندا إن لا توجيه مسكحة كوتشرته وهو يوم ريسورس كان لا استعماله أيان دقنك ورنا ولا عليال كقرشين دونا إلهي إذا كي أنا أقول لك عشاننا ضدك أقون طوله ضدك واي أرق هو ضدك دون دلول أرمها أرنت أودن بيسا صدق دقيقة ده وزارة ده ورفافتي وإنه كهذا الاستدين وطيين دونين مضحكوا إنه الله أنا لقبته صلي النبي بركديس وبالصلاة عليه سهلا يكون صعيب الشيخ يدعي الله إله صلي النبي وده هو رد مفضل النبي إنه شيء عليه الصلاة والسلام إذا هم تكفر وتغفر ذنبك وهي ابن كعب النبي يقول عليه الصلاة والسلام يا رسول الله صلي على أنت كدقة وكو خير وكو خير وكو خير ربع مكدقة نص مكدقة صدق ما يلوذ ولا بما كدقة وكو خير صلي على أقول موضة إذن هذا سداية شو أو أبي بن كعب حديث صحيح صلى عبد الله صلوات على النبي إذن بو النبي يقول تكفى همك وتغفر ذنبك الدنيا شيء بالله باهي بدنيا إن أنا دباتكم إن أنا يهم دبات مروج إن أنا كقول عين وبدأ الدنيا آخرا يندبق على الدفع الدنيا لا بدأ أسات كهل فيدا تصدقيش تصل جالس إنه لك عشان إنه وزارة دولة قاعدين أمريكا مركان قيم تار رافين تمركان إنت هكذا دقن كانوا إنه كبعيننا الصومالي قد تفيرقوا أي إنه ترمين دونا إنه إنستيوشن يسوسمين دونا حتى قرار ديكشنريو وبتكينا في عهد يلا مستقبلك دقن كيوي كاسي وعي جلنت وهلك أقول مهم سر وهلك وزارة دني قرق وقابل سنتها وأنا هلك ما أنت أي كتمرين لا هذا أي كدوتي أبوان كتشوجا إيه فنان كتشوجا إيه قفك هالأبور كله تشوجا كدوتي يوي وهلك ومدن جهين لهيد قبيلة دكاكورين لهيد صبون لماذا كساري لهيد اللي تريد كإيه وحبر شلون أنت كساري لهيد توعي قلنتم ما هو الفرين لقدر الريديو أرجيس وعي قلنتم ما هيس لقدر محن كلا كل بشيء قرق وعي قلنتم وحيو باهنت هاي كباسيتي جدين لكورجيو إن حتى هي لتط موبايل تيمز كوحكو وريجا هديد دتك إنه كوعي قلنا إنه إن نرت شرين بس ده أكسس جوا دليل إن الراديو أرجيس الله وجه شيء إن نرت لا شرين وإن هالكبر حرايس تطوع كوكو بيسو تيم امتجان علماء يسوق شراء وأبوان يسوق شراء ومرجبة وحوش شيء مروعي ديني السيا مر أقون يهنمو لمن كي environment كي يقاني الله قدره deegaan kan ay qaribayaan waxa uu dib u geysanayay de wacyigelintu ka balaartay intay maanta tahay marka wacyigelintiina waxaynu u qaadanaynaa inaynu ka dhigno wax capacity-geeda ku shaqeyn kara oo ay wacyigeliso wasaaraddu waxa xun oo dhan ee bulshada haysta ka wacyigeliso ku wacyigeliso wax kasto dantooda qarannimadooda wada dhalashadooda walaalnimadooda dalkooda wax wada lahaanshahooda isu baahnidooda inay ku wacyigeliso إنك ولا على المانتا شغالها يجي أنا الله الله يمانتا يهرجوجا وحلا إنه هذا بهذا وحبر الشدة حاجة لقى كان إيرجا بهذا غيرك وحبر الشدة لأنه ما يراه بهذا وحبر الشدة معناها ولا المذي ولا الكاد حاجة أبكى ولا التينت كالهوية دتي قالوا ذني بكو حيد هذان هاف برادر بانا كاد هوية أبو إذا مدد لنا فول برادر بانا بهم كأنه نايد ولا المذي بالسوسي بهيا يولي به marka bahdeena wasaaradda waxbar warfaafinta iyo wacyigelinta
waxaynu ku shaqayn karaynaa ka cudwin waaxid inaynu noqono min wasiir ilaa waashmaanka wasaaradda ilaalinaya isu qalbi ku shaqayno mas-uuliyadda aan qaadnay annaguna xilkeeda gudanno aanu samayno productionka aad soo saaraysaan ugu yaraan wax ku dhow haddii wax ku filan qofka bini aadamkii markuu wax soo saar leeyahay wax soo saarka uu soo saarayo wax u dhigan oo benefit waa inuu helaa haddii qarankeenu maanta dhaqaale ahaan weli liito aqoonsi aynaan haysan suuf iyo xanja aynu isku dhalaalinayno inta tabari ina dhigtay mooyaane in aynu inagu hagranaa inaanay jirin baan ku dadaali doonaa haddii alla yidhaa mar labaad waxaan halkan uga mahadnaqayaa madaxweynaha qaranka jamhuuriyadda somaliland dr cabdiraxmaan ee xilkan ii igmaday waxaan ka rajaynayaa baaxadda weyn ee ay wasaaraddani leedahay inuu ila aqoonsado waxna igala qabto haddii alla yidhaa taasi waa warbaahintii dowladdu maamulaysan anna wasiirka u ahaa warbaahinta madaxa bannaan ee walaalahaya oon saaxiibo dhowna ahay qarankaad ka mid tihiinoo wasiir baan idiin ahayo dadka aan xilka u qaaday baad ka mid tihiin haddii kabasitigiina la kordhinayo haddii tababarrada wax laydinka siinayo haddii yacni itigiska saxaafadeed in idinka laftiina kor laydinku qaado loo baahan yahay dee wasaaradda line ministerigiinni weeyaan wasaaradda uti waxaan ballan qaadayaa wada shaqaynteennu inay wanaagsanaato tartanna wuu iman karaa aniga madaxweynahayga ay doortay ee ii soo cugmaday wasaaraddan waxaan ka rajaynayaa inuu yahay shakhsi ogol diversity kala duwanaanshaha in la naqdiyi karo lagana ra'yi duwanaan karo dad kala duwanna uu weliba haysan karo qaadiriga suufiga salafiga wax inuu wada haysan karo ayaan daninka ku wadnaaye saxaafadda madaxa bannaan sabab uu gaar uga eryan karaa igama muuqato anna kulama shaqaynayo waxaynu ku wada shaqaynaynaa inaynu si positive idinla tartanno weliba tvga qaranku wuu idinla tartamaya capacity-giisii kordhinaya doodihiisa iyo waxa uu ummadda u gudbinayu kordhinaya wuxuu ka saarayaa meesha eeg marka xanaftu tahay inaad ceeb ad leedahay qarsato ay dowladnimadu noqoto inaan ceebtaada la sheegi karin inaad ku dadaasho taa ma xakamayn kartid way baxaysaa ceebtaadu laakiin marka ay noqoto inaad ceebtaada xallin karto waad la tartamaysaa ninka ceebtaada fadhiga waxaad se ogaataan walaalayaal warbaahinta madaxa bannaan qof kastaa xuquuq buu leeyahay everybody has a right xuquuq inuu noolaado inuu nabadgelyo helo inuu biyo helo inuu caafimaad helo inuu waxbarasho helo inuu xorriyatul qowl helo haddaba walaalayaal waxaa fundamental ah iyaduna ood maanka ku haynaysaan saxaafadda madaxa bannaanay xorriyatul qowlka iyo xuquuqda qofku leeyahay qof walba xuquuqdiisu waxay ku joogtaa halka qofka kale xuquuqdiisu ka bilaabanto xaq uma lihid qof kale xuquuqdiisa inaad gasho xuquuqdaada ma noqonayso xuquuqda qofku waxay ku joogtaa halka qofka kale xuquuqdiisu ka bilaabayso everybody has a right sida xuquuqdaada in loo ilaaliyo doonaysa oo ilaali xuquuqda qof kale walaalkii marka xuquuqaheennaynu wada ilaashanaynaa xaq waxa uu leediin baa laydinku ilaalinayaa xaq waxaanu idinku leenahay had noo ilaalinaysaan saxaafadda madaxa bannaanna intaasaan leeyahay walaalayaal halkan wasiir calina waa ka dardaarmay innagana wasaaradahan xil baa inaga saaran dee qarankeennu wuxuu u baahan yahay difaac military buu u baahan yahay difaac maaliyadeed buu u baahan yahay difaac warbaahineed buu u baahan yahay inta aad wax ku qaadanaysaan ee aad ku tihiin shaqaale dowladeed oo payrollka ku jira waxaan idinka codsanayaa shaqaale weynaha wasaaradda warfaafinta inta aad volunteer ugu daraysaan qarannimadiina aad ugu hiilinaysaan ee aan ahayn wax xaq laydinku leeyahay oo dhididkiinii ah aan ahayn waxaad ku darteen ah inaad qaranka la barbar joogsataan fanaaniinta qaranka ee wasaaradda hoos yimaada yani hadal maantoo dhan halkan warqad aan ka akhriyo on ka shubo laba erey oo nin abwaanihi laba bayd uu ku sameeyo iyaa 2 milyan oo qof daqiiqad ku fahmi karaan anna haddaan halkan saacad socdoon hadlo waxa laga yaabaa in dadka qaar ay fahmiba waayaan laakiin marka uu laba bayd nin abwaanihi sameeyo muusig yaroo lagu sidii cali marraxan ciyaarey loogu ciyaarana loogu tuuro 2 milyan oo qof baa fahmaya marka waxaan ka faa'iideysanaynaa awoodda idinku jirta ee qaranku u baahan yahay shacbigu u baahan yahay maanta waxaynu u baahanahay dagaal gudaha inaynu ka sifayno waxa ayna kala qaybinaya qabyaalada ka sifayno qoqbo ka sifayno waayo asalku shay walba asal iyo farac buu leeyahay asalku waa wada jirkeena waa wada dhalashadeena waa wax wada lahaanshadeena waa dawladnimadeena farcuna waa xilalka loo kala wareegayo sharci cali waa wasiiraha maanta aniga Dahab Plus
isku filnaansho maaliyadeed oo casri ah. haddii aad isticmaashid Dahab Plus uma baahnid inaad dib ka marto bixinta lacagaha, kaliya si fudud ku aadi kaamiradaada QR code scan-kaaga. Dahab Plus isku filnaansho maaliyadeed oo casri ah.